بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سعادة الوزير وزير أوقافته arrimaha diinta wasiiru dowlaha iyo dhammaan culimada ka soo qayb gashay barnaamijkan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam mowduuca aan halkan u joogno waxaa waaye mowduuca hore looga dhawaajiyey oo la dagaalanka khawaarijta oo ay madaxdii dalka uga baxeen qasru ri'aasa ay u tageen furunta dagaalka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxweynayaashii isteedyada hadduu ahaa lahaa madaxweynihii isteedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo madaxweyne Qoorqoor iyo dhammaan wasiiradii iyo gaashaandhigii iyo taliyihii ciidamada intaba ay furunta u joogaan. culimadana sida hore looga dhawaajiyay halkan ayay furunta uga jiraan, halkan ay waxay hayaan iyagana ka soo gamayaan. mudane madaxweyne waxaan ku leenahay culimadu waa garabkaaga, ku dhihi mayno sida reer bani Israa'iil ay yiraahdeen nabi Muuse idhab anta wa rabbuka faqaatila inna haahunaa qaaciduun, ku dhihi mayno laakiin idhab anta wa rabbuka faqaatila innaa macakumaa muqaatiluun. annaguna garabkaaga nahay, dhinaceennan xabadda ka ridaynaa nimankan cadowga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii la diriray oo dadka hor istaagsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab kaaga dhigo nimankan inaad ummadda ka horwareejiso aad iyo aaday muhiim u tahay. dalka iyo dadka madaxweyne adiga ayaa mas-uul ka ah, diintan ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ilaashanayo, mas-uulna adiga ayaa ka ah. sidaan ognahay diinta islaamku 3 jeer ayay waxaa la yidhi khatar gashay, ilaahayaana badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. marka ugu horeysa waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu galay godkii asaga iyo abubakar, halkaas ay qurayshu ay tiri 100 halaadan siinaynaa ciddii nolol iyo geeri keenta muxamed ee ha la soo qabto nimankii madaxtooyadii abijahal oo madaxda ka ahaa. markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala dushay ka istaageen, ilaahayaa badbaadiyey. abubakar wuxuu yihi haddii midkoor uu fiiri lahaa wuuna arki lahaa godka, laakiin ilaahayaa badbaadiyey. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maa danuka bithnayn yaa abaabakar, maa danuka bithnayn allahu haaliثuhuma. abubakarow maxaad u malaysana laba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu 3 ku yahay. midda labaadna waxay ahayd markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday oo dadkii carabta ahay intoora badan ay ridoobeen oo islaamkii ay diideen ee zakadii ay diideen, abubakaraa ilaahay u bixiyey subxaanahu wa tacaala. markaasuu wuxuu yihi ayanqusu diinu wa ana xay, haddii maalin salaada nin diido maalin zakada nin diido wax soo harayaba ma jira, maalinta dambena waa lagu kala tegaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku badbaadiyey abubakar radia allahu canhu, yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey. midda saddexaadna waxay ahayd nimankii khilaaf alcabaasiya markii ay jireen, nimankii masalatu khalqi اlqur'aan markii masaladii ay timiday oo la yidhi qur'aanku waa makhluuq iyo makhluuq maaha, raggii culammada ahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u bixiyey waxaa ka mid ahay alimaam ahlu sunna, imaam ahlu sunna axmed ibnu xambal, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyey. ragna ay towriyaysteen ay yidhaahdeen towraad iyo injiil iyo furqaan iyo zabuur haadihi 4 makhluuqa, iyagoo ula jeeda 4 farood. hadalkiisi mashhuurkahay uu yidhi idaa jahila aljaahil idaa akhada alcaalimu tugyatah wa jahila aljaahil mataa yucrafu alxaq. uu yidhi hadalkii imaamu axmed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyey oo uu ku qaatay asaguna magaca imaamu ahli sunna waljamaaca. mudan madaxweyne marka waxaan ku leenahay diinta adiga ayaa mas-uul ka ah, waxaa lagaa rabaa ayanqusu diinu wa ana xay, inaad tiraahdo nimankaana cadowgaana ummadda aad ka dul wareejiso. culimmaduna waa garabkaaga, ilaahay subxaanahu wa tacaalaana way kuu soo baryayaan, wax allaale waxay kari karaanna waa insha allahu tacaala garabkaaga ay yihiin. waxaan kaloo rabaa qodobka kale, ragga ciidamada oo dagaalka ku jira oo furunta hore taagan, walaalayaal ajir xusubsada, ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiiggiinna wax badan ayuu ku badbaadinaa. cid allaala iyo cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad dishiinna nimankaas waa cadow, janno ayaad ku gelaysaan. hadday idin dilaanna sidoo kale janno ayaad ku gelaysaan. marka jazaakum allahu khayran. waxaan rabnaa ragga meediyaha jooga oo akhbaarta qaldan meediyaha la wadaagaya amba faafinaya ilaahay ha ka baqaan. adduunyada
hadday jooji waayaanna waa lala xisaabtami doonaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay hadduu idiin yimaado qof war sheegaya yaa oo been faafinaya ha la cadeysto oo ha layska hubiyo ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala marka jazaakum allahu khayran kelimadeeda intaas ayaan kusoo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi